Bismillahirrahmanirrahiim. Koorsadan waxaa ugu talagalnay qof kasta oo bilow ah ee computerka bilaabayo iyo qofkii hore wax uga bilaabna. Koorskan waxaan ku qaadan doonaa ilaa iyo 4 buug. Buugtaasna waxay kala yihiin buugga koowaad oo hadda aan qaadanayno Windows, iyo buugga labaad oo Word ah, buugga saddexaad oo Excel ah, iyo buugga afraad oo PowerPoint ah. Koorsadan waxaa ugu talagalnay qof kasta oo arday ah ama shaqo ku jiro ama computerka iyo basickiisa inuu wax ka fahmo u baahan. Marka waxaan ka bilaabeynaa buugga koowaad. Book 1 waxaa loo yaqaanaa Windows. Sawirkan meesha noogu muuqdo wuxuu noo sheegayaa first marka ugu horeysa oo indhahaaga ku dhacaan maxaa ku muuqanaya sawirkan. Yacni labada sawir isla fiiri, maxay ku kala duwan yihiin isleedahay. Muuqaalka inaad boos dhahdo kadibna adi isku jawaab. Okay, waxaan rajeynayaa marka jawaabta inaad heshay. Haddii jawaabtaada saxan tahay waa okay. Haddii jawaabtaadana aad isku dayday laakiin mid saxda aysan noqonin, waa isla fiirinaynaa. Horta waa isla computer, sidoo kale waa isla desktop, laakiin waxay ku kala duwan yihiin geedkan meesha ka muuqda ee madow. Marka maxaa isleedahay kan wuxuu noqon karaa? Kan waxaa la yiraahdaa system, sidoo kale tower inta ugu qoran. Towerka waxaa loogu magacaabay maadaama uu yahay joog oo uu samaysan yahay. Tower sida Englishka markii la joogo waxaa loo isticmaalaa dabaqyada kale, dabaq dhisan oo kale waxaa la dhihi karaa tower. Marka waxaan dhahaynaa system la yiraahdaa sida caadiga aan naqaano. Desktop way isla yihiin, laakiin systemka oo kan leeyahay ayaa waxaa la sameeyay kan waa lagu soo dhex sameeyay. Marka all in one aa lagu magacaabo markaas. Awalka hore desktop isla ahaayeen, systemkii waxaa la sameeyay kan lagu soo dhex sameeyay. Marka kan wuxuu ka fudud yahay kan in la qaado kale, laakiin qaadis sida laptopka heerkaas ma gaarin. Waxaa leenahay computer maxaa la yiraahdaa? Computer waxaa dhihi karnaa waa electronic device kaasoo marka ku shaqeynayso in la control ama la hago memory. Sidoo kale waxay leedahay memory gaar u ah kaasoo aqbalayso in input lagu soo sameeyo data oo flash wax noocaas soo gelisay. Sidoo kale iyadoo loo fiirinayo xeerar cayiman waxaa la soo saarayaa information oo loo yaqaan output, kadibna waa la keydinayaa xogtaas si loo isticmaalo mustaqbalka. Shaqada marka computerka waxay u dhacaysaa tusaale data soo gelisay. Data waxay noqon kartaa flash oo ay ku jiraan maqal, muuqaal, documenti, sawir waxay doonaan. Kadib waxaa usoo gudbisay computerka. Kadib computer markaa usoo gudbisay waa laga shaqaysiinayaa, processing dhacayo, kadib information soo baxay. Information kaas marka wuxuu noqon karaa tusaale information kaas wuxuu noqon karaa output. Output kaas marka wuxuu noqon karaa in shaashada ay kasoo muuqda sawir haduu yahay, document haduu yahay, maqal haduu yahay in maqashid. Laakiin information ka intaas buu noqon karaa. Waxaa leenahay muxuu ka kooban yahay computerka. Waxaa leenahay nooc kasta computer muxuu ka kooban yahay. Nooc kasta oo computerka wuxuu ka kooban yahay hardware iyo software, wax kale ma jiro. Computer muxuu ka kooban yahay hadii lagu yiraahdo hardware software waa simple. Adoo computer bartay ama hadda qaatay ama hadii lagu weydiiyo bari ka maalin oo lagu dhaho computer muxuu ka kooban yahay ee aad dhahdo laptop iyo desktop, fashil waay. Laakiin jawaabta saxda waxa waaye hardware iyo software. Marka waxaa leenahay computer hardware-ka maxaa la yiraahdaa markaas? Ii sheeg qofka ku weydiiyo computer hardware muxuu yahay loo leeyahay. Concept-ka guud waxaa marka waa qeybaha muuqdo oo ka kooban yahay computerka. Tusaale waxaa ka mid ah monitorka oo dhaladan ah, mouse-ka oo midkan sawirka meesha noogu muuqda, keyboard-ka oo asagana sawirka meesha noogu muuqda. Mouse-kan waxaa loo isticmaali doonaa falaartan hadda aad u jeediin in lagu dhaqaajiyo ha u isticmaali doonaa. Waxaa arki doonaa laptopka asagana
wuxuu leeyahay wax la yirahdo touchpad. waa u gudbeynaa. waxaa marka keyboardka marka la joogo wuxuu leeyahay keyboardkan externalka la isticmaalo wuxuu leeyahay qayb section u kala baxaa taybis uu leeyahay. marka qaybtan waxaa la yirahdaa control keys, sidoo kale qaybtan waxaa la yirahdaa function keys, qaybtan waxaa la yirahdaa numeric keyboard, qaybtan waxaa la yirahdaa navigation keys, sidoo kale qaybtan kale waxaa lagu magacaabaa iyadana control keys. waxaa jirta qaybtan dhexda waxaa la yirahdaa typing area. touchpad hadda soo sheegnay, hadda u gudbeynaa. touchpad waxaa dhihi karnaa waa qayb yar oo ku shaqeynaysa dareen. waxaa loo isticmaalaa sida pointing device oo kale. pointing device waxaa dhihi karnaa falaarta ama muuska sida loo isticmaalayo falaarta oo kale sida u isticmaalaysa waxaa loogu isticmaalaa kombiyuutarada la qaato. marka sawirka meesha naga muuqdo isla markii waxaa kugu soo dhacay laptopka isticmaalaysa ama laptop hore u isticmaasha ama mid hore u aragtay in uu leeyahay kale. marka qaybtan waxaa la yiraahdaa touchpad. u gudubna software maxaa la yiraahdaa hardware. waa soo sheegnay, waxaa dhahnay qayb kastoo muuqdo ama uu ka kooban yahay kombiyuutarka waxaa la yiraahdaa hardware. software maxaa la dhahaa marka? software waxaa leenahay waa xog la sugo, waxaa leenahay software waa xog kombiyuutarka lagu ururiyay iyo instructions waa leh software. marka laba nooc uu leeyahay taybiskiisa softwareka. waxaa taybis software waxaa waa system software iyo application software. system software waxaa dhihi karnaa wuxuu mas-uuliyad ka yahay in la controlo, laga shaqaysiiyo, la maamulo qeybaha uu ka kooban yahay hardwareka kombiyuutarka. tusaale window hadduu ku jiro kombiyuutarkaaga waxaa suurtagelayso in dhammaan qalabiska kombiyuutarka uu ka kooban yahay inuu ka shaqaysiiyo. oo tusaale hadduusan ku jirin window ka waran kombiyuutarkaaga, nooc kasto qalab tayeysan uu ku jiro ama ha cusboonaado, hadduusan wax window ku jirin ma shaqeynayo, wax shaqeynayo maaha khalaas. application software asna waxaa leenahay waxaa loo isticmaalaa in lagu qabto shaqooyin khaas iyadoo marka laga maarmaayo ama la rangareynaynin system computerka. marka tusaale example waxaa dhihi karnaa application softwareka photoshop oo kale ama facebook ama whatsapp waxyaabahaas oo kale dhihi karnaa. marka waxyaabahaas haddii kombiyuutarkaaga ay ku jiraan waxaa u isticmaalaysaa baahi gaar haddaysan ku jirin kombiyuutarkaaga ka waran kombiyuutarka ma u fadhinaya waa ka maarantaa. marka ayadana waxaa leenahay application software. marka labadooda yaa muhiimsan? system softwareka muhiimsan oo kombiyuutarka dhan uu ku shaqeynayo. windowga tusaale usoo qaadana waxaa kaloo jira iOS oo kombiyuutarada apple-ka lagu shubo. marka operating system waa windowga soo qaatay. intaas ku ekeenaynaa cashirkeena koowaad. waa inuu cashirka xiga insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.